Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta waxaan uga hadli doonaa lamaane dad qaaday xilligoodii arooska ama aqalgalkooda. Ku soo dhawaada mar kale mowduuca maanta. Waxay ahaayeen lamaane wada socday muddo 9 sannadood ah. Maalintii aqalgalkooda waxay la kulmeen arrin cajiib ah. Lamaane da'yar oo ku nool gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa maalintii arooskooda ku beegneyd waxaa gurigooda qaaday daad xoog leh. Lamaanahani ayaa la arkay sawiro ku saabsan daad qaaday gurigooda muddooyinkii dambe. Dalka Australia roobab iyo duufaano ayaa ka jiray. Maxaa ku dhacay guriga lamaanaha? Sarah iyo Joshua ayaa waxay kireysteen guri ku yaala waqooyiga Sydney, waxayna ahayd inay aqalgalaan maalin Sabti ahayd. Hase yeeshee nasiib darro waxaa gurigii soo galay webi ku yaalay meel aan sida uga fogeyn guriga. Saraakiisha ayaa ka digay daadad xoog badan oo nolosha bini'aadamka khatar gelin kara. Gudoomiyaha gobolka New South Wales Gladys ayaa ka digtay in gobolkaasi uu wajahayo fatahaadihii ugu badnaa ee soo mara 10 sano ee ugu dambeysay. Lamaanahan waxay ahaayeen kuwo muddo wada socday 9 sannadood ah, ugu dambeynna ku heshiiyey inay isguursadaan. Sheekada la yaabkeeda ayaa ahayd in maalintii aqalgalkooda uu daad qaaday gurigii ay degganaayeen, kadibna si dhib leh ayaa looga badbaadiyey meesha. Waxaa meesha soo gaaray qolada badbaadada musiibooyinka. Waxay islahaayeen nolosha macaanideeda ayaa idin bilow ah, laakiin waxay galeen khatar naftooda ay ku gaareen, taasoo kaga timid roobab daadwatay. Daawade, ka waran arrintan oo kale haddii ay ku qabsan lahayd Soomaalideena? Maxaan dhahnaa marka ay waxyaabo sidan oo kale ah dhacaan? Dhanka hoose ku soo qora intiinan daawatay. Mahadsanidin. Ugu dambeyn, fadlan ha hilmaamin like-ta, share-ta iyo soo dhaweynta dhanka qalbiga. Ugu dambeyn, waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.